cusbitaalka degmada Kalabayd oo kamid ah degmooyinka gobolka Sool isla markaana dhacda dhinaca hawd ee gobolka oo la aasaasay sanadii 1998 isla markaana ay hirgelisay hay'adda MBA ee laga leeyahay dalka Norway oo ah hay'adda kaliya ee gobolkani guud ahaanba deegaanada uu ka kooban yahay ka fulisay mashaariic wax ku ool ah oo ay si weyn uga faa'iideen dadweynaha ku dhaqan gabi ahaanba gobolka ayaa waxaa xilligani la sheegay in cusbitaalkan ay la soo darseen baahiyo kala duwan kadib markii cusbitaalka ay ku timi culays ka ballaaran adeegyadii loogu talagalay inuu qabto iyadoo cusbitaalka uu noqday isha kaliya ee caafimaad ay ku tiirsan yihiin gabi ahaanba dadweynaha ku dhaqan deegaanada ku yaala dhinaca hawdka ee gobolka Sool sida uu sheegay agaasimaha cusbitaalkaasi oo kula kulmay halkaasi. cusbitaalku wuxuu ka kooban yahay 8 qol qol waadka ragga ah waadka dumarka delivery oo dhalmada ah haweenka ah qolka shaybaarka oo kana qolka coolchiinka ama talaalka lagu ilaaliyo barafkiisa qolka bukaan socodka qolka farmasiga qolka store oo wax la iska dhigto iyo afar suuli waxaa la dhisay 1998 waxaa dhistay hay'ad MBA Norwegian People's Aid Somalia Program oo Australia wala shaqeeya isbitaalkana duruufo fara badan ayaa ku soo aadmo sida adeer dhaawacyada ka imanaya toga gumburka meesha ugu soo horeysay ee la keenay waa halkan emergency aan lagu soo shaqeeyo dadka ka shaqeeyana waa ilaa 12 meel DR uusan joogin waan ku adeeg badanaan aaminsanahay. dhinaca kale roobab si weyn loogu diirsaday ayaa ka daay magaalada Kalabayd ee gobolka Sool iyo gabi ahaanba deegaanada ku xeeran roobabkani oo ay si weyn u soo dhaweeyeen shacabka ku dhaqan deegaankaasi ayaa waxa ay si weyn u biyageliyeen baraagaha biyaha lagu kaydiyay ee degmadaasi oo ah goobta kaliya ee sida weyn ugu tiirsan yihiin dadweynaha ku dhaqan gabi ahaanba deegaankani gaar ahaan magaalada Laascaanood oo xilliyada abaaraha looga soo dhaamiyo biyaha macaan. أحمد ساكن فرح Laascaanood. It's so